soo dhawaada caruurey sheekadanu maanta waxay ku saabsan tahay saaxiibtinimada iyo faa'iidooyinka ay leedahay waqtiyada kamid ah ayaa waxaa meel ku wada noolaa oo saaxiib ahaa saddex xayawaan oo kala ah diidiin jiir iyo tuke waxay ahaayeen saddex saaxiib oo aad isuga warhaya aadna isugu wanaagsan waxay ku noolaayeen meel kayn ah oo u dhow meel hara ah oo biyo ku jiraan waxay wada joogaanba maalmaha kamid ah ayaa waxa u timi oo ay arkeen deera ku cusub kayntii ay deganaayeen deeradii ayay weydiiyeen deera yahay maxaa tahay deeradii waxay ku tiri waxaan ka imi kayn fog waxaan soo maray dhul badan waxaan intaasoo dhan raadanayay xayawaanaan la saaxiibo hase yeeshee maanan helin oo xayawaanada qaybtood waa ay diideen qaybna waaba iga aamuseen idinka ayaan idin yimi waxaana doonaya inaan idinla saaxiibo ee saaxiibtinimadeeda ma ogashihiin saddexdii xayawaanee kale ee diidiinkii jiirkii iyo tukihii waxay soo dhoweeyeen saaxiibtinimadii ay usoo bandhigatay deeradu diidiinkii ayaa hadalkay qaatay wuxuu yidhi markii hore waxaynu ahayn saddex saaxiib oo keliya laakiin hadda waxaynu noqonaynaa 4 xayawaan oo saaxiibo ah deeradii halkii ayay kusoo dhoweeyeen sidii ayna saaxiibo ku noqdeen waqtigu wuxuu socdaba subax walba 4 xayawaan mid walba jihadiisa ayuu u dhaqaaqi jiray si uu doonto oo u raasido gaarsi iyo wuxuu soo cuno habeenkiina waxay kusoo noqon jireen kaynta halkii ay ka deganaayeen iyagoo wada jira waqtigu wuxuu sidaa ku socdaba subaxdii dambe markii la baxay waxaa habeenkii soo laaban weyday deeradii saddexdii kalena waa ay soo noqdeen way isweydiiyeen oo deeradii waxay dhaheen qof maanta arkay ma ina ku jiraa saddexdeena xayawaan mid walba waxay reey maya maan arag deeradii maanta oo sidii saaka ay nooga baxday ayay weli u maqan tahay cabaar ayay sugeen kadibna waxay arkeen inuu habeenku sii madoobaanayo deeradii saaxiibtood ahaydna aysan weli soo socon sidaa darteed waxay isla qaateen go'aan ah inay saaxiibtood raadiyaan waa intaas oo qof ugaarsadaa qaatay ama ay dabin ku xiran tahay ama ay meel kale gashay oo caawimaad u baahan tahay tukihii ayaa fikrad soo jeediyey oo wuxuu yiri diidiinka iyo jiirka labadiinaba anaa idinka dheereeya oo anigu waan duulaya idinkuna waad soconaysaan marka aniga ayaa korkana wax ka arki kara sidaa darteed aniga ayaa keenta dhex qaadaya oo soo raadanaya saaxiibteen halka igu sii suga waxaan idin keenayaa wixii aan soo arkay labadii xayawaan oo kale way la qaateen go'aankaas tukihiina wuxuu bilaabay isla markiiba inuu ku dhex duulo kayntii isagoo ka deedayay saaxiibtiis deero cabaar markii uu socday ayuu wuxuu maqlay codka deeradii oo meel ka qaylinaysa wuu u yimid suu wuxuu arkay saaxiibtiis oo nin ugaarsada ah dabinkiisa dhexda ka fadhida oo meel dabina gashay oo ku xirxiran markuu u yimiba deeradii way faraxday wayna u mahad celisay kadibna waxaa dhacday inuu soo laabto oo u yimaado labadii saaxiib oo ku sugaya halkii uu kaga tegey wuxuuna u sheegay wuxuu soo arkay wuxuu ku yiri saaxiibtan nin ugaarsada ah dabinkiisa ayay ku jirtaa waxayna u baahan tahay caawimaad degdeg ah inta uusan iman ugaarsadihii dabinka meesha dhigtay sidii ayay ku soo baxeen si ay u soo badbaadiyaan saaxiibtood markay meesha yimaadeen isla markiiba jirkii ayaa wuxuu bilaabay inuu ilkihiisii afka badnaa ku jarjaro dabinkii ay deerada ku dhex jirtay sidaas ayay deeradeen xor ku noqotay oo ay kaga badbaaday dabinkii markaasay deerada waxay bilowday inay halka ugu mahad celiso saddexdii saaxiibee kale ee nafteeda furtay isla markiiba waxay arkeen ninkii ugaarsadaha oo u soo socda rabana sidii u qaato dabinkii iyo deeradii ku dhex jirtay waxay bilaabeen 4 xayawaanba inay doontaan oo cararaan tukihii waa uu duulay jiirkiina waxa uu dhex galay meel yar halka deeradiina ay keenta dhex carartay laakiin diidiinkii oo aad u gaabinaya ayuu ninkii ugaarsadaha halkii kusoo gaaray wuxuuna sameeyey inuu qaato oo ku dhex rito dambiishiisii ugaarsiga uuna la tegay markuu dhaafay ninkii ugaarsadaha ahaa waxaa isu yimi oo soo baxay saddexdii saaxiib oo kale waxayna arkeen saaxiibkoo diidiin in la qaatay oo ninkii ugaarsadaha uu sidaa ku qaatay waxay ku fikireen sidii ay uga soo badbaadin lahaayeen saaxiibkood jiirkii iyo deeradii ayaa waxay dhaheen sidee baan usoo badbaadin karnaa oo aan uga soo badbaadin karnaa ninka khatarta ah oo ugaarsadaha ah iyagoo ka cabsanaya inuu iyagana wax yeeleeyo laakiin tukihii ayaa fikradkeena wuxuu ku yiri isagu waa hal qof oo kaliya inaguna waxaynu nahay saddex waynu soo badbaadin karnaa saaxiibkeen ee ina wadiya deeradii iyo tukihii ayaa waxay bilaabeen inay wadada u istaagaan oo ay isaga dhigto deeradii mid u soo noqotay ninkii ugaarsadaha ahaa jiirkiina wuxuu isku qariyay meel u dhow oo aan ka fogeyn wadada ninkii ugaarsadaha markuu arkay deeradii oo wadadii taagan waa uu farxay wuxuuna tuuray diidiinkii oo ku jira dambiishii wuxuuna soo aaday deeradii laakiin waxaa diyaar ahaa oo isla markiiba soo baxay jiirkii wuxuuna bilaabay inuu ilkihiisii afka badnaa ku jarjaro dambiishii uu saaxiibkiis diidiin ku jiray halkaas oo uu kaga badbaadiyey markii uu ninkii u soo dhowaaday deeradii way carartay tukihiina waa uu duulay waxayna dhex galeen keynta halkaas ayay kaga qarsoomeen wuxuu usoo laabtay dambiishiisii si uu u qaato diidiinkii laakiin waxaa arkay diinkii inuu mar hore ka dhex baxay dambiishii sidaas ayay 4 saaxiiba ku badbaadeen ninkii khatarta ahaa oo cuni lahaana ay ugaga badbaadeen sheekadan waxaynu ka baranaynaa caruurey saaxiibtinimada iyo wadajirka faa'iidooyinka ay u leedahay nolosha mahadsanidin kusoo dhawow janaalka sheeko xariiro waxaad ka heli doontaa sheekooyin badan oo filim kartoona aad ku cajimin doonaa kusoo dhawow mar labaad haddii aadan saaxiib hore nala ahay soo dhawow oo taabso subscribe-ka si aad ula socotid sheekooyinka xiisaha leh ee aan soo gelin doono maalmaha soo aadan mahadsanid